السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. anigoo gudoomiyaha saddexaad ee xusbiga wadani waxaan aad iyo aad u jecelahay in aan ka hadlo oo aan qabto war-saxaafadeed kaasoo maaragtay arrimo badan oo shacabka Somaliland maanta ay u jeedaan in laga hadlo ay tahay waajib. waxaad moodaa awalan arrimaha ka taagan iyo istiraatiijiyada aanu daabahay xusbiga wadani aanu rabno inaanu shacabka Somaliland aragtidayada sidii maaragtay xaaladdu meeshay maraysaba aanu la socodsiino. waxaad moodaa in baarlamaankeena oo maaragtay talada wadanka qayb ka haya in arrimo badan ay dhex yaaleen bishan la soo dhaafay. dabcan xusbiga talada haya ee kulmiye ama qof kasta oo talada haya shacabka Somaliland wanaagooda inuu ka shaqeeyo waa waajib. waxaa isweydiin mudan xilligii ay timi maamulka talada haya oo uu hogaaminayo Siilaanya uu hogaaminayo wadanka aynu leenahay oo Somaliland inaynu xisaabtano waa waajib weeye. dawladda wixii wanaag waan ku garab istaagaynaa dhamaanteen, wixii khaladana waynu diidaynaa dhamaanteen. dadka islaamka ana waxay ku fiican tahay awalan in shay kasta la ilaaliyo sida maaragtay dawadiisu ay tahay loo ilaaliyo. xusbiga talada haya waxa maalimahan oo dhan lala socday in shacabkeena Somaliland wanaagoosa in uu ku sii jiro maaragtay waxyaabo badan oo mugdi la gelinayo. dabcan anoo ka bilaabay marka hore maamulka baarlamaanka iyo gurtida intoodaba shacabka Somaliland waa waajib wanaagooda in la ilaaliyo, wadankana in la ilaaliyo waa waajib. arrimaha ka dhex taagan baarlamaanka dabcan wax badan aad iyo aad ba shacabka Somaliland ay ula socdaan. waxay la socdaan shacabku ay og yihiin in baarlamaanka uu horyaalo mooshinkaas oo ku saabsan gudoomiyaha baarlamaanka. waxaad moodaa gudoomiyaha baarlamaanka oo Cabdiraxmaan Cira in maanta shacabka Somaliland badidoodu ay og yihiin inuu yahay nin daacad nin shacabka Somaliland wanaageeda jecel inuu ka mid yahay. anoo ku hadlaya siyaasiyiinta Cabdiraxmaan daba taagan ku hadlaya siyaasiyiinta xusbiga wadani magaciisa waxaan qof kasta oo muwaadin aan u sheegayaa inuu ogaado shacabka Somaliland xusbiga wadani inuu ka shaqeynayo istiraatiijiyada Somaliland meesha ugu fiican. waxaad moodaa arrinta baarlamaanka inay tahay arrin wax badan oo ka dambayso maaragtay shacabka Somaliland wanaagooda annagu aanu rabno in laga soo horjeedo maaragtay Cabdiraxmaan. waxaad moodaa Cabdiraxmaan dabcan baarlamaankeena qof kasta cod buu ku yimi, qof kastana maxay ahayd toolay shacabka Somaliland ayuu ku yimi, codkoodii buu ku yimi baarlamaanku. waxaad moodaa dawladda iyo baarlamaankuba waxay u dhaarteen shacabka Somaliland inay cadaalad sameynayaan, in ay wadanka ilaalinayaan waa u dhaarteen. baarlamaanka sidaad la wada socotaan guddigan maaragtay isku taagan oo dawladdu maaragtay ay ka dambayso. dawladda dhammaanteed waxaanu ogeysiinaynaa marka hore inay dawladda ayadii tahay inaanu rabno dariiqa ugu fiican in lagu sameeyo maxay ahayd toolay wadankeena la ilaaliyo, in la eego maxay ahayd toolay wanaaga meesha aynu marayno. axmed maxamuud Siilaanyo oo madaxweynaheena sharafna dhammaanteen inaga mudan, taariikh dheer oo fiicanna leh maaragtay waxaa aad iyo aad u quman oo qof kastaba inuu eego la rabaa. waxa weeyaan axmed wuxuu u dhaartay shacabka Somaliland wanaagooda inuu sameynayo, wuxuu kale oo ku dhaartay shacabka Somaliland inuu cadaalad u sameynayo. dabcan haddii arrintaa la waayana waxaad moodaan in qofka islaamka ay fiican tahay in gacanta laga qabto. haddii dawladdu ay khaldan tahay ama baarlamaanka gruub ka mid ay khaldan yihiin waxa weeye wadanka inaga leh, shacabka Somaliland oo dhan baa leh, wanaag oo dhanna inaga la walaalayaal. waxa weeye qofkii khaldan waa la qabanayaa. haddii aad eegtaan baarlamaanka gudihiisa waxa dhacday sida aad la wada socoteen dawladdeenu
inay timi waddankan ingiriiska ay timi markii ay timi waxaa jirtay in shacabka somalilan loo yeedhay oo magaalada liverpool madaxweynaha iyo gruubka u waday in halkaa ay ku qabteen maaragtay shacabka somalilan in wax loo sheego dabcan wasiirada hadlayay kolle xirsi ka mid buu ahaa anigoo jecel xirsi nin islaamana inuu yahay garanaya haddana waxyaabuhu ku hadlayay dabcan taasaa bedeshay shacabka somalilan wax badan oo wanaagiisa ahayd bedeshay waayo waxaa la ogaa oo qof kasta oo muwaadina uu arkayay xirsi inuu u dhaaranayay baarlamaanka somalilan isagoo u socday una dhaaranayay guddoomiyaha baarlamaanka oo ah cabdiraxmaan ciro isagoo u dhaaranayay cajaladana qofka islaamka ah in been laga sheego maaha waxaa la yidhaahdaa fact is not a crime marka wuxuu ku hadlay qof kastoo islaam ah inuu arko ayaa yaro fiican waxayna weeye qofka islaamka in lagu xadgudbo ma aha wasiir ka tirsan maamulka axmed maxamed maxamuud siilaanyo awood uma lahaa inuu kula hadlo guddoomiyaha baarlamaanka taa iyada ah ma aqaano meeshay ku taallo laakiin axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wasiirada uu hogaaminayo somaliland constitution baa u yaala haddii constitutionkeeda ay ku socdaan waxa weeyaan dee shacabka somaliland way u jeedaan haddii laakiin wuxuu aysan constitutionka somaliland aysan ku qornayn ama maxay ahayd toole waxa constitutionka somaliland ka baxsan ay tahay waxa weeyaan taa iyada ah qof kastoo islaam ah waxa fiican inuu dhibta gacanta kala baxo shacabkeenu waxay u baahan yihiin inay gacanta isqabsadaan baarlamaanka waxa weeyaan waxa ka dhex taagan waxa weeyaan waad ogtihiin dawladdu markii ay ku noqotay waddankeena ay ku noqotay waxaad la socotaan xusbiga talada haya ee kulmiye wuxuu isugu yeedhay dhammaan baarlamaanka nimanka xusbiga kulmiye ugu jiro iyaga oo ku kulmay oo galay guriga madaxweyne ku-xigeenka dabcan waxaa laga wada hadlayay maxay ahayd waxa weeyaan waa arrin ka soo horjeeda interestka shacabka somaliland ka soo horjeeda cabdiraxmaan waxa weeyaan maanta waxa lagu tuunsan yahay waxa weeyaan cadaalad baa lagu tuunsan yahay shacabka somaliland beel yar iyo beel weyn cabdiraxmaan way rabtaa cabdiraxmaan shacabka somaliland intooda badan ayaa raba waxaa aad iyo aad u ah maxaragtay gaf u ah waddanka in dariiqa uu ku socdo in la bedelo waxa weeyaan gaf wey waxayna gaf ku tahay dad islaamaynu nahay haddii shay uu khaldamo waxa weeyaan diinteenna inay u celinaynaa ilaahay wuxuu leeyahay fa in tanaasactum fii shayin firidduu ila allaha wa rasuulah nacamtii haddii wax laysku qabto ama haddii ay dhib timaado walaalayaal waxa weeyaan solution badan baa inoo furan walaalayaal waxa weeyaan ma dhahayo aniga oo xusbiga waddani ee mucaaridka ah ka tirsan siyaasiyiintiisa ka tirsan xusbigaayaga hal qof oo ka mid ah ama hal qof oo siyaasiyiintayda ka mid ah ma qabo waddanka in hoos loo celiyo ma qabo xusbigaayagu wuxuu qabaa shacabka somaliland in la simo shacabka somaliland in wax kasta oo wanaag ah danahooda laga shaqeeyo dabcan aad iyo aad baan uga xumahay xusbiga talada haya waxyaabihii shacabka somaliland dhammaantood dhegta loogu shubayey ee la dhahayay soomaali weyn waxaynu ku haysanay cadaalad darro soomaali weyn waxaana lagu sameeyey dhibaatada maanta waxyaabaha aan la yaabo waxaa ka mid ah innagii oo cadaalad darro sheeganaynay maanta shacabka somaliland markhaati waxay ka yihiin xusbiyada yaryar ee soo baxaya xusbiyada yaryar ee waddanka taladiisii u diyaara inay qabtaan in dawladda oo awooddii dawladnimo haysata in ay muquuliso oo ay baabiinayso dabcan taa iyadana waxaad moodaa in xoogaa justice ahaan inaysan balansi ahayn walaalayaal dawladda innagaa le walaalayaal axmed siilaanyana waa madaxweyneheenii inagu ina matalaa dawladdiisa innaga ayaa leh laakiin dhammaantood walaalayaal waxaynu ku diidaynaa ama xusbiyada mucaaridka aynu ku diidaynaa wixii cadaalad darro ah wixii shacabka somaliland kala wadaya qof kastoo islaami waa inuu ka fogaado cabdiraxmaan ciro looma gelin karo shaar unsan maaragtay shaaraan u qalmin cabdiraxmaan maaha nin maaragtay beel iyo waxaa ku xisaabtama
maaha cabdiraxmaan ciro waxaa weeye nin shacabka somalilan beel yar iyo beel weyn ay u siman tahay weeye walaalayaal xusbiga talada haya waxaan leeyahay talada markii aad qabatay kulmiye dhammaantiin waad maqlaysaan dawladda waad dhisteen dawladda haddii aad dhisteen dhismaha dawladdiina bictureka shacabka somalilan in laga qariyo maaha waxa weeyaan dhismaha dawladda shacabka somalilan oo dhan uma dhamma dabcan waxaad garanaysaan oo qof kastoo islaami uu eegayaa dhismaha dawladda inagaa leh laakiin dawladda waxaan weydiinayaa ama xusbiga talada haya ee kulmiye aan weydiinayaa magaalo kasta iyo xaafad kasta beesha la yiraahdo beesha ma dhibaan waa degan tahay weligeed yaa laheed hal wasiir ma la siiyey no lama siin dabcan xusbiga talada haya waxaan u sheegayaa somalilan waxyaabo badan oo in la saxo u baahan baa jira dabcan somalilan xilligii la saxi lahaa in la yiraahdo somalilan maxay ahayd toolay abaab kalaha lagu furo somalilan beelo beelo in laysu maago uma baana qof kasta waa diidan yahay haddii baarlamaanku uu qaatay lacag haddii baarlamaanku la dhexgeliyey lacag waxaanu u sheegaynaa baarlamaanka lacagta qaatay oo shacabka somalilan shalayto u dhaartay waxaanu u sheegaynaa inaanaan yeelaynin wax cadaalad darro ah waxa weeyaan cadaalad darraduna ummadana way duminaysaa waddankana way duminaysaa walaalayaal shacabka somalilan waa dad isku dan ah beel yar iyo beel weyn waxbaa inaga wada maqan istiraatiijiyad baynu dunida ka lahayn waxaynu u sheegaynay dunidii somalilan maxay ahayd toolay waa waddan yar oo democratic system lagu korinayo dabcan dhammaanteen markaynu eegno somalilan dimuqraadiyada ka jirtaa siday u eg tahay ma casaanba ma madowba ma mid buluuga dabcan dunida waxbaynu ka dhaadhicinaynay waxa weeye wixii aynu ka dhaadhicinaynay weli ma dhammaystirna dabcan somalilan waddan go-anna ma aha dabcan istiraatiijiyada somalilan waxbaynu gadaynaa walaalayaal waxa weeyaan waa market baynu ku jirnaa dhammaanteen somalilan dunidaynu ka gadaynaa waxaynu ka gadaynay somalilan shacabkeedu waxbay wada leeyihiin iyada oo wax la wada lahayn iyada oo beelaha oo dhan aysan u sinayn ayaan dunida waxaynu ka dhaadhicinaynay somalilan dadkeedu waa walaalo somalilan unity baa ka jira dabcan yaa diidan markaa dabcan xusbiga talada haya ee kulmiye wax badan baa diidan tihiin anoo weliba si toosa caawa ula hadlaya muuse biixi iyo maxamed kaahin wixii shalay taa diideen ee xumaanta ahayd dabcan maanta in hargeyso iyo burco iyo meel kasta oo somalilan dhulkeeda ay ka jirto dabcan cid inaga yeelaysaa ma jirto xusbiga taladiisaad ku jirtaan axmed maxamed maxamuud siilaayo waa oday weyn wey waa oday aqoon la weeye waana oday dhaqanka somalilan yaqaan weeye waa oday garanaya somalilan meesha ay joogto dabcan way fiicnaan lahayd maanta inaan kala hadalna axmed maxamed maxamuud siilaayo inaynu dhammaanteen aynu eegno axmed maxamed maxamuud siilaayo inagoon xusbi gaar ah ku riixaynin inaynu eegno somalilan shacabkeeda axmed siilaayo muxuu soo kordhiyey somalilan ma sinna somalilan waqtiga hadda aan hadlayo somalilan shacabkeedu ma sinna somalilan waxa jira looma sinna yaa diidaya waa kee ninka diidaya somalilan bictureka inaga muuqda waa bicture aad iyo aad u qasmaya haddaad eegto farcida yaalla shacabka somalilan waxyaabaha dawladdu ay gacanta ku hayso waxyaabaha noqon karaba oo u eeg inay noqonayaan wax ka soo horjeeda humanitarian lowga ka soo horjeeda waayo beel magaalo kasta degan oo xaafad kasta degan oon rayd lahayn ka warrama dabcan waad garanaysaan dhammaantiin shacabka somalilan in laysku wado aad bay u fiicnayd xusbiga talada haya waxaan u sheegayaa ama qof kasta oo muwaadina aan u sheegayaa shacabka somalilan wanaagooda waa in la ilaaliyo xusbiyada mucaaridka ah iyo xusbiyada iyo xusbiga talada haya intaba shacabka somalilan wanaag bay u baahan yihiin dawladda talada haysa waxaan u malaynayaa dhaqaalaha axmed siilaayo wuu bartay saad ula socotaan laakiin waddanka markaad eegtaan axmed maxamed maxamuud siilaayo hal warshad weli kama dhisin dabcan wuxuu bartay waa dhaqaale dunidana dhaqaalaha qofka bartay waddanka inuu ku soo kiciyo oo shacabka ama ummadda uu ku geeyo dariiq fiican oo dhaqaale loogu abuuro
ayaa aad iyo aad u qumanayd inuu keeno xusbiga talada haya ee kulmiye haddii aan ka hadlo istiraatiijiyada xusbiga wadani aan ku jiro xusbiga ayagu wuxuu wataa arrimaha dhaqaalaha markaanu eegno oo dunidana aanu ka dhaadhicinayno tusaynana shacabka Somaliland inaanu kambaniyo badan iyo hay'ado badan oo shaqo abuuraya shacabka Somaliland magaalo kasta magaalo weyn iyo magaalo yarba aanu geynayno tusayno shacabka Somaliland in xusbiga wadani ay tahay istiraatiijiyada uu ciyaaraya ama uu raadinaya ay tahay shacabka Somaliland dariiqa uu joogo dariiq ka fiican inaanu geyno walaalayaal Cabdiraxmaan qof kasta oo muwaadin waa inaad ogaataa Cabdiraxmaan waa nin Ilaahay ka baqaya waa nin shacabka Somaliland oo dhan ay u siman yihiin Cabdiraxmaan qof kasta oo islaam oo waa inaad ogaataa aakhiro in lagu weydiinayo qofka aad raacayso waxaad ku raacday Ahmed Maxamuud Silayo shalay inaga dooranay walina wanaag baanu haynaa anigu wanaag baanu hayaa personally waxaan u hayaa reerkiisaan u hayaa waxaan u hayaa siyaasiyiinta uu doortay oo dhan laakiin dawladdaada picture-ka ka muuqda qabiilada la yiraahdo maxay ahay toolay waa laga tirada badan yahay dabcan kuma wada jiraan Somaliland waxa dhici doonta maalin la isweydiin doono la dhihi doono xageeba tala laga qabtaa waayo shacabka inta leeg waxay u baahan yihiin cadaaladana waxa weeye xusbigii ay ku tuunsan yihiin xusbigii sameynaya way raacayaan shacabka Somaliland way maqlayaan xusbiga wadani waa xusbiga kaliya ee shacabka Somaliland dantooda wada xusbiga talada haya waxaan leeyahay dabcan waxaad ka soo horjeedaan waxa weeyaan all human being are born free and equal in dignity and rights way ka soo horjeedaan waana waxyaabaha ay wada garanayaan oo human rights ka way maadaama ay ka soo horjeedaan waxa weeyaan wax badan clear bay inagu tahay walaalayaal siyaasadiinu inay tahay siyaasad khaldan cid maanta la gabanaysaana ma jirto waxa weeyaan shacabka Somaliland waa isku dan shacabka Somaliland wanaagooda hala ilaaliyo waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga oo aan leeyahay wax kasta oo dhaca waxa weeyaan there is a diplomatic way to deal with difficult issue naamti inaga oo dhan oo is haysano walaalayaal waxbaynu daweyn karnaa waxa weeyaan qof kasta oo shacabka Somaliland ka tirsan waa inuu ilaaliyaa wanaaga aynu leenahay waxyaabo badan waa inaynu xeerinaa waa inaynu dawladeena ilaashanaa baarlamaankana aynu ilaashanaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh